waxaan rabnay caawa inaan war-saxaafadeed yar ka samayno cudurka coronavirus sidaad arkaysiin gadaashay waxaa taagan guddiga qaybihiisa kala duwanaa ee loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ka hortagga cudurkan haddii aan hadalkayga ku bilaabo warbixin yar oo ka kooban waxyaalihii qabsoomay oo dhacay howlaha caafimaad ee xakamaynta cudurka covid wasaaradda caafimaadka waxa ay si joogto ah u wadaa baarista dadka looga shakiyo xanuunka waxay samaysay xarun lagu daaweeyo bukaanka laga helo iyo wacyigelin joogto ah dabcan iyadoo kaalmaysanaysa hay-adaha kala duwan ee dowladda laga bilaabo 10kii bisha maarso wasaaradda waxa ay howlgelisay xarun lagu karantiilo dadka looga shakiyo cudurka covid-19 taasoo qaada ilaa iyo 100 qofood xarunta weli waa ay shaqaysaa dadkii la geeyay waa ay dhammaysteen muddadii loogu talagalay hal qof oo ka mid ah dadkii lagu karantiilay waxaa laga helay cudurka dhammaan dadka la karantiilay waxaa diyaaradaha ay la soo saarnaayeen dad laga helay cudurkii dadkaasna waxay dhammaayeen ilaa iyo 166 qofood dhammaantood waa lala socday xaalkooda waxayna dhammaysteen muddadii la socoshada haddaan ka hadalno baaritaanka cudurka shaybaarka ilaa inta la howlgeliyey shaybaarka qaranka 7 Abriil waxaa la baaray 186 qofood oo looga shakiyey cudurka waxaa laga helay 80 qofood 80kaas laga helay 70 ka mid ah waa rag 10na waa dumar dadka u badan ee xanuunka laga helay waxa ay da'dooda u dhaxaysaa 20 ilaa 40 jir kuwaasoo ah 60% bukaanka la xaqiijiyay bukaanada la xaqiijiyay inay qabaan cudurka 100% in ka badan 90 waxa ay joogaan magaalada Muqdisho inta testiga lagu sameeyay markii laga soo bilaabo 16 Abriil 2020 waa 193 inta la xaqiijiyay inay positive tahay inta xaaladood oo positive ah waa 80 inta la xaqiijiyay positive ka ah ee labka ah waa 70 inta la xaqiijiyay ee dhadiga ahna waa 10 ilaa iyo maanta galabta waxaa la baaraya ku dhawaad 47 xaaladood kale oo aan sugayna berri haddii alla idmo natiijadooda haddii aan fiirino da'da ay u dhaxeeyaan dadka laga helay cudurka eber iyo 20 sano da'da u dhaxaysa waxaa laga helay 3 20 ilaa iyo 40 sano dadka jirana waxaa laga helay 48 qofood 40 ilaa iyo 60 jirna waxaa laga helay 16 qofood 60 iyo ka badanna waxaa laga helay 13 qofood guud ahaan tirada sidan hore u soo sheegay waa 80 qof magaalada Muqdisho inta qof oo laga helay waa 73 magaalada Hargeysa waxaa laga helay 5 magaalada Kismaayo waxaa laga helay 2 tirada guud waa 80 ilaahay ha u naxariista jannadina ha ka waraabiyo waxaa cudurka u dhintay 5 ruux oo 3 ay ku dhimatay isbitaallo markii laga soo qaaday sambalka oo baaritaanka loo diray kadib geeriyooday dadkaas waxay u badnaayeen dad xanuuno hore la tacaalayo u ildarnaa ilaahay waxaan ka barinay inuu jannada ka waraabiyo daaweynta bukaanka wasaaradda waxay u asteysay isbitaal Martini inuu noqdo xarunta daaweynta markii isbitaalka loo asteeyay la tacaalidda bukaanka laga helo cudurka waxaa loo qoondeeyay 46 sariirood oo kaliya waxa yaalay 8 mashiin oxygen ah oo midkood uusan shaqaynaynin sidoo kale isbitaalka ma lahayn xarun daryeel bukaanada daran ICU waxaa la dhammaystiray dhismaha qaybta ICU-da waxaa la dhigayaa 25 sariirood oo qalabkooda u dhammaystiran yahay si loogu daaweeyo bukaanka u baahan ICU waxaa la kordhiyay tirada mashiinada oxygen-ka hadda waxaa yaala 50 sariirood oo leh mashiinka oxygen-ka
kuwaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo bukaanka uu xanuunku ku rido neef qabad. waxaa isbitaalka hadda taalo 10 bukaan oo xaaladooda caafimaad lala tacaalayo. waxaa loo soo wareejiyay 10 takhtar iyo 10 kalkaaliye caafimaad oo laga keenay isbitaalka Digfaar oo si joogto ah isbitaalka u joogaya ilaa iyo shaqada ay ka dhameynayaan. markii ay dhameeyaan geli doona karantiil group kalena uu bedeli doono haddii alla idmo si iyagana badqabkooda loo xoojiyo ummadina ay u kaalmeeyaan. daawada, agabka iyo qalabka caafimaadka dawladda waxa ay heshay ku dhawaad 20 iyo ka badan mitir tan oo isugu jira qalab, agab iyo daawooyin caafimaad loogu talagalay la tacaalidda cudurka COVID-19. agabka waxa ay isugu jiraan kuwa loogu hortago faafidda iyo badbaadinta hawlwadeennada caafimaadka loo yaqaan PPE personal protection equipment, daaweynta bukaanka, agabka caafimaad sida sariiro iyo mashiino. dhammaan kaalmadaas waxaan ka helay dawladda sida Jack Ma Foundation, ninkii maalqabeenka ah ee ugu deeqa wadamada Afrika 54 inuu u diro gargaar caafimaad. wadanka United Arab Emirates, hay'adda WHO, hay'adda IOM iyo hay'adda ACF. kaalmada u dambeysay ee shalayna soo gaartay waxa ay ka timid Jack Ma Foundation waxaana isugu jirtay 7 shay oo soo socda. swabs oo ah ilaa iyo 18,900 oo xabo, extraction kits oo ah 18,912 loogu tala waa alaabaha shaybaarka uu isticmaalo si baaritaanka loo sameeyo, medical disposals oo ka mid yahay PPEs dharka la xirto marka la daaweynayo ama la baarayo, dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ay xirtaan oo ah 3,800 raali ahaada. maskarada lagu xirto oo wajiga face shield oo ah 3,800. 5 ventilation machines oo 5 xabo ah iyo medical gownka oo ah 36. medical gloves geedaha gacmaha la gashto oo ah ilaa iyo 19,000. waxaan u mahad celinaynaa cid allaale ciddii deeqna la soo gaartay. wacyigelinta wasaaradda waxay si joogto ah u wadaa fariimaha wacyigelinta ka hortagga cudurka laga baahiyo ilaa iyo 15 raadiyo kuwaasoo ku yaala guud ahaan waddankoo idil. dhammaan tirada guud ee fariimahaas la rabo in la gaarsiiyo waa 6 milyan oo qofood ugu yaraan. wacyigelinta way socotaa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid allaale ciddii ka qayb qaadatay wacyigelinta iyo ka hortegidda cudurka coronavirus. walaalayaal, waxaan isku waaninaynaa mar walba in aan xakamayno cudurkan. ilaahay naga haayo. siyaabaha aan ku dadaali karno inaan ku xakamayno waa ka hortagga annagoo raacna talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan howlwadeennada caafimaadka ee ah in gacmaha ugu yaraan 20 seconds la dhaqo, saabuun lagu dhaqo, in la kala dheereeyo dadka masaafada isku jirsanayaan physical distancing, in meelaha buuqa aan la isugu tegin la yareeyo oo aanan la ciriiri la gelinin. dadka qaba cudurrada raaga chronic diseaseska oo ah dadka aad ugu nugul cudurka waxaan ku waaninaynaa bulshada in xanaano gaara la siiyo, inaanan ciriiri la gelinin, in laga hortago wax kasta oo dhib u keeni kara iyo in guriga la joogo. qof allaala qofkii awooda waxaan isku dayaynaa wax allaala wixii tabarteena inaan qaybino, in face mask afka la xirto meelaha baabuurta iyo shirarka iyo bannaanka markii loo baxo. ilaahay wuxuuna faray inaan dadaalno cudurka aan ka hortagiisa. waxaan isku waaninaynaa insha Allah tacaala ilaahay inuu naga haayo laakiin aan dadaalno sidaan u xakameyn. aad iyo aad u mahadsantiin.